waayahay waan ku jirnaa aan soo dhaweyn samayno dadkan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين بميل كستا دنيدا يدافعها الدون كان نقد عونيسان عيد مبارك كسو دوادا برامج لايفا هون كقهل دونو حالة قبل كلاس عانوت iyo xaaladda jiida hore ee Soomaaliland iyo Puntland u dhaxaysa waan runtii dad xoog gaalana khadka telefoonka aan ku soo marti qaadi doono si aan wax uga weydiino sidaad ogtihiin labadii qof ee maanta ku dhintay magaalada Laas Caanood iyo xaaladaha la midka ah dhamaantiin ba soo dhawaada hana la share gareeyo waayahay si wacan baad maqlaysaan dhamaantiin ba Soomaa waayahay waan ka qaaday Allah islaamik soo dhawaada ha lagu share gareeyo groupyada dadka dhan war soo qabanana telefoon lambarkan soo qorin waxaana sidoo kale aanu sameynin in dadka aanu siino fursad xagga Facebook aan ka soo qabano war degdega ayaanu haynaa oo aan xaaladda kaga hadli doono waay السلام عليكم waxaan soo dhaweynayaa runtii nin khadka si toos ah ugu jira oo xaaladana si xooggaala ugu warhaya oo dhinaca Puntland maxay tahay metelaya oo iyo waliba waxa uu xog ka hayo aan wax ka weydiinano soo dhaw walaal ma maqlaysaa aad baan ku maqlay aad waayahay magacaago saddexan intaad ku bilowdo dad badan baa ku daawanaya maxay tahay horowgal adoo nagala qayb qaadanaya xaaladda magacaygu marka horeyso waxaa nahay jaamac xirsi koro hadal haye waxaan magacaygu Cabdullaahi jaamac xirsi waa gartaa waxaan joogaa magaalada Garowe joogaa ma garat haye caasimadda dowladda Puntland baan joogaa aad iyo aad heerta ule nabadii alxamdulillah Allah inoo siyaadiyo ما شاء الله واتي كورن حالة جود جروة يدعم داس سيدا لوجع عيدي ما أنت حتى حوارك بنتلان كودهان يكودهان صومالي ويدل رمان مسلمين تا محن كورا هذا دافع الدنيا كارهان وان كحوم هاي صاحب سوى عن هذا دي مقلسو هذه بلوغة ها كسعو هيه maxaad wax wara ka haysaa xaaladda magaalada Laas Caanood iyo si wacan baa lagu maqlay ha noogu dhaqso haddaan u guda galo barnaamijka xaaladda magaalada Laas Caanood iyo guud ahaan maxaan ku radaa gobolka Sool gaar ahaan deegaanada la isku fadhiyo xogta aanu ka hayno waxa weeye maxaan ku radaa ka Puntland ahaan iyo maxaan ku radaa ka dadka deegaanka ahaan waxaanu ka warhaynaa in ciidamada Somaliland xaris bareera waxaan ku radaa ugu toogtay magaalada Laas Caanood niman dhalinyaro ah dadkaasna waxaa fuliyay maxaan ku radaa gudoomiyaha cusub ee gobolkaas dowladda Somaliland oo soo magacawday lamana garanayo sababta maxaan ku radaa ka dambeysay hawshaas haddaan u soo gudbo xaaladda gobolka maxaan ku radaa deegaanada la isku fadhiyo maalmihii ugu dambeeyay ciidamada dowladda Puntland ee geesiyaasha sharafta mudan waxay sameeyeen horsocod inaba maxaan ku radaa caadi ahayn oo ay ugu ruqaansanayaan maxaan ku radaa inta ka harsan gobolka Sool ilaa laga gaaray libada gaataba waxa inta dheer in maxaan ku radaa ciidamada Somaliland ay aaga ku sugan ay soo kala dhex gashay khilaafaadkaas oo abuurtay markii Nuuxtaani uu amar ku baxshay ciidamada deegaanka Laas Caanood inuu amar ku baxshay inay furinta horgalaan ayaguna dadku ay yiraahdeen annagu waxa weey dadka la dagaalamayno walaalahayo dadka iyaga furintuna waa ay ka diideen marka furintu waxa weey hadda waa ka bixin ciidankii maxaan ku radaa gobolka Sool ka soo jeeday dhulbaante insha Allah waxaan rajeynayaa inay soo galaan
maalmaha ugu dhaqsiyaha badan dhulkooda hooyo gaar ahaan puntland iyo somaliland waxaan u sheegay timcad hadalkiisa ku caddaanay somaliland ay cayaheeda ka talin oo aysan kala bixin ciidamada iyo wiilasha ay kusoo lugoysay meeshaas haddii aysan kala bixin sida wasiirku dhawaaqay dagaal faraha laysaga gubtay ka dhacay meesha waatay haddaad aan intaas halkaa u dayno waxaan su-aalo kaa weydiinayna anagoo doonayna inaan runtii adigana aanan runtii aanu barnaamijkaygu noqon barnaamij caburinaya dadka qaar ama maxay tahay dadka qaar siinaya telefonka waxaad ka dhawaajisay sidaad ogtihiinba in beesha dhulbahante ay diyaar u yihiin ciidamadii kaga jiray somaliland inay maxay tahay ay dagaalkaas ka baxaan oo maxay tahay ciidamada somaliland khilaaf yaa kuu caddeeyay baad odhan karaysaa xaggee baad ka heshay warka noocaasa ما مغلسة waxa weeye sahan baa jira markii ciidan jiro ciidanku wuxuu leeyahay sahan waxa weeye wardoon uu leeyahay helo kala duwan baa xogta laga helaa mana mudna in maxaan ku rahaa warbixinta laga gudbiyo lida xagga iyo xaggaas warka leh laakiin xogtaas way jirtaa ilaahay idinkii maalmaha nagu soo aadan ciidamada Soomaaliland haddaysan ka bixin waxaa ka dhici doonta واي هلكا انت ديغو جوجيسو waxaad ii sheegtaa waxaan la soconaa kululay waxaad ii sheegtaa waxaan la soconaa maxay tahay labada qof ee la sacaanood lagu dilay xaaladoodu qaabkay u dhacday Soomaaliland way ka hadashay maxay ahayd dawladda Soomaaliland way ka hadashay sidoo kale shacabka reer Soomaaliland ee la sacaanood ilaa maayo wax weyn gobolada kale ku sugan way la socdaan dhinaca aad sheegayso adigu waxaad u dhigtay qaab kale inuu dhacay wax weyn dilkaasi dil wax weyn ku talagal ah maxaad ku cadeynaysan maaha waxaan la soconay in wasiirro kamid ah dawladda Cabduuli Gaas ay soo fadhiisteen warbaahinta oo ay ku hadleen hadallo xanaf leh toddobaad maalintii dhaweyto oo laba casho ka soo wareegtay maxaad sabab u ah baad odhan karaysaa Puntland weerarkan iyo waxa weeyaan inay maxay tahay maratuurkan ay leedahay xitaa qaramadii midoobay iyo wadamadii IGAD nabadgelyada ka shaqeynayay inay wax weeyaan ay ku gacansaydo ma talabaad marka ay leeyihiin waxaan teganaa gobolka laascaanood ayaan soo dhaafaynaa maxaad ku diidantihiin xuduudka maxaad ku diidinaysaan dhinacina ما مخلص عبد الله niyo waxa horta aqliga saliimka inuu shaqeeyo fiican dhulkan Ingiriis ma leh Ingiriisna waxa weey maxaan ku raad dalku waa gumaysan jiray muddo maxaan ku raadaa qarni ku dhow maxaan ku raadaa wadanka gumaysan jiray baa koor laga kacay inaana maxaan ku raadaa aqliga saliimka hadduu shaqeeyo nimayo waxa weeye xuduud ba Ingiriis dhigay oo xuduud ba xagga taala adeer Soomaaliyan waxaan isku darsanay Puntland waxa weeye ama haddaan hadalka u dhigo cadeeyo waxa fiican in raga hadalkiisu inuu toosan yahay harti wixii la isku oran jiray waxay samaysteen dawlad goboleed haye iwad taasi oo maxaan ku raadaa yiraahdeen ma intay Soomaali israacisha midoobayso waxa weeye ka taam ka noqonayso hart kor jeed dawlad samaysteen waxaad ogtahay waxay samaysteen dawlad ma garad hadalada xanafta leh waxa keenay waxay tahay marka gurigaaga hore loo soo galo oo lagu yiraahdo heshiis baan kula qaadamaysi marka maatidaada iyo shacabkaaga iyo maxaa ku raabay magaaladaada muuse ka xishoon waay iyo wax laga xumaado waa ay tahay wax laga dhigayna waa ay tahay wax maxaa ku raad laga falceliyo oo darbaaxa kulna looga falceliyo waa ay mudan tahay marnaba kama filanayn rag baa dumar ugu gacan qaadaya ceebta waxa uu xagee bay ugu gacan qaadeen xagee bal loo sheeg xagee ugu gacan qaadeen raggu waxay gabdhihii maxaa ku dhacday dhaawacooda garow wala keenayay gabdhaha yaa dilay haye gabdhaha sax yaa laayay lagu baabinahay oo maxaa ku raad xitaa kamiinko dhakhtarka
kurada carme lafaha ay anikii hore jiraan baaba'ashay ma garatay waxa weeye xaalad labadii gabdhood ma garatay waa la socotaa dulmiga Soomaaliland ka jira maanta waxay marag u tahay in Cornel Caare maanta waxa weeye Puntland soo galay oo waxa weeye ciidankiisa uu ku furay saldhigiisa military ee Puntland si qardho ku yaalay dagaalku wuxuu noqonayaa laba geesood in badan bay Puntland waxay tiri nabadaan ka taleynaa waxaanu diidanahay dhiig Soomaaliyeed daata waxaanu diidanahay hooyooyinka Somaliland inaanu maxaan ku raacday asayda u xirno laakiin Cabdilla marka la eego dhinaciina xaqiiqda marka loo tagayo waxa jirta in hanjabaad haday tahay faan haday tahay aad barihii bulshada iyo xitaa madaxdiina aad ka simantihiin waay dhamaatay xabada inoo balan xabad reer gumaysta lama laakiin waxa la leeyahay beesha ma jeerteen waxa caadaysatay Soomaali waa dadka ugu faanka badan sidaa daraadeed waxa xitaa mar walba wasiiradiina haday tahay madaxweynaha haday tahay jihaad baad ku baaqaysaan waxweeye mana muuqato wada aad wax Soomaaliland awood aad iskaga cili kartaan Soomaaliland ciidamadeeda waxa la sheegayaa inaan xitaa hal mar la maqal Soomaaliland in ciidamadeedu ay mushahar waayeen halka Puntland ay la ogeyn in xitaa ay la wareegeen bangi ku yaala magaalada Boosaaso ciidamada waxa weeye dawladda maamulka Puntland iyagoo marka ka cabanaya qarash la'aan iyo waxa weeye lacag la'aan marka maxaad indhaha isaga tuuraysan way muuqataa in waxa weeye meesha aydan waxba ku haynin talabaad dadku ma wanaagsana labada beelood iyo dadka aad sheegayso iyo beelaha meesha degan waa dad walaala waxba kama dhaxayaan laakiin siyaasad dhulka Soomaaliland way cadayna leedahay markaad leedahay Somaliland ma Ingiriisku xilligu siiyay iyo maxay tahay Ingiriis ba maxay tahay wadanka uga tagay Ingiriisku waadiga og jigjiga maalintii dhaweeto dad waxa ka qaylinayo ka ooyay hartiya oo daaroodaba ka ooyay maxaad ugu dagaalami weydeen aad ugu tagi weydeen oo aad Oromada uga celi weydeen waxa weeye Ethioopianka ma Somaliland ba awoodiinu ay tahay inaad waxa weeye maxay tahay ka hor qaylisaan mise waa sida xaaladu xaaladu waxay tahay dhulka hadda soo qaaday Ethiopia hawsha hal shargray fiiga shaqada ay tahay dowladda federaalka Soomaaliya annaga ka Puntland ahaan dhulka halkii la yiraahdo taa ka kamid ah Somaliland soo galmeyso mid kale hawshii kale ka dhawaajiso ciidamada Puntland ee mushahar la'aanta waxa uu kala duwan dowladda Puntland ee geesiyaasha ah waxay amran yihiin ama la faray inay gobolka Sool soo dhaqsiyaad ku soo ceshaan ciidan gadoodana waxa way ma jiro waxa way maxaa ku raada afar wiil oo waxa way saxaafad wax ka boonboonisaad aragtay ciidamada Puntland oo gadooda haweenaad ma jiro ciidamada Puntland waa ayaga difaaciyadooda ku jira waa ayaga cadawga halka ka dhicinaya waxa intaas ku soo haray ciidanka Puntland maanta waa xuduudda kaliya geyiga Soomaali ka jida waa xuduudda kaliya 7 saacadood gudahood al-shabaab si kaliis ay ku soo galeen oo laba gobol oo Puntland ka mid ah wax al-shabaab oo la dagaalantaan oo cad ma jirto dadku waxay leeyihiin al-shabaabta ay sheegayaan waa la dagaalamayaan wax way xitaa iyaga waa dhalinyaro kamid ah oo ay buuraha galiyeen si ay beesha caalamka uga helaan wax weeyaan lacago iyo wax weeyaan waa qaab ay ku ugaarsadaan oo wax weeyaan lacag ku raadsadaan marka xaqiiqda marka laga hadlo Soomaali waxay ugu eedeysaa inaad tihiin dadka wax weeyaan Soomaali kala gaxeeyay ee halka dhigay marka wax weeyaan maanta inaad wax weeyaan aad musanow 8 bilood bay imika xilligii tukaraq ilaa uu qorshahaasi soo bilaamay ay soconaysaa 8 bilood in wax weeyaan ay taagnaato tolaaya reer hebelay waxa uu sabababa la leeyahay Cabdiwali Gaas iyo inta mangaabka ah ee aqligoodu aanu gaarsiisnayn wax weeyaan meel fog ee doonaysa inay xil ku kororsato marka dadka in lama jara habaabiyo maaha Somaliland xuduudkan way leedahay adigu marka uu leeyahay siyaasigaagu xuduud anaga la sacaanood ila maxay ilaahay baa nagu soo balmiyay TV-ga la taagnaayeen waxa weeyaan la sacaanood aniga waa la igu soo balmiyay kana Ingiriis baa siiyay ana ilaahay bay siiyay ilaahay goortu siiyay goorma ahayd uu ku balmiyay Puntland waxa
niyo horta aan Puntland taariikhdeeda ku baro Puntland waxa weey maxaan ku raada sagaalka gobol ee Puntland horta sagaal gobol ah kaga dhacday reer Puntland waa waa dadka kaliya waxa weey Soomaali markii ay israamsatay oo isgoosto la qaxay oo caasimad la qaxay calankii Soomaaliya dib uga taagay waxa weey fila Soomaaliya waxa weey waa reerka kaliya waxa weey keenay hanaanka lagu samata bixin karo Soomaali oo nabadda federalismka barnaamijka laga keenay weey waxa ku soo haray hello ma maqlaysaa waxaan filayaa khadka ka go'ay saaxiibkay waxaan ku soconaa barnaamijkan soo galay iyo warbixinta aan doonayna inaan idin la wadaagno waxa weeyaan aan xagga sare uga dhignay dadka badan waan soo qabanaa wixii Facebook si toos ah ugu jira barnaamijku waa barnaamij aan doonayno inaan kaga hadlo xaaladii labada qof ee Laascaanood lagu dilay iyo maxay ahayd xaaladii ugu dambeysay Soomaaliland maxay ka tiri labada qof si dadka shacabka ah ee Laascaanood iyo dadka deegaanku maxay ka yiraahdeen walaalayaal sida la socotaan kulli dad badan baa la socon waxa jirta magaalada Laascaanood in laba qof lagu dilay oo ciidamada Blaze ee Soomaaliland ay ku dileen haddaba ciidamada Soomaaliland waxa la leeyahay arrinkaas way soo noqotay in ciidamada Soomaaliland ay sas ka qaadeen dadka reer Laascaanood maxaa sabab u noqotay inay wax weeyaan dadku sas ka qaadaan ama ciidamadu sas ka qaadaan oo had iyo jeer ay dilalka noocaas uga dhacaan Laascaanood waxa ka dhici jiro in la soconaa dilal qorsheysan iyo wax weey qaar lamida haddaba waxaan in yar idii akhrinaya gudagalaya faaladan maxay tahay aan doonayna inaan barnaamijka qaybta kaga dhigay fidmada oo Cabdiweli Gaas wado faragubasho mooyee faa'iido kama helo arrinka qodobkaasan in yar isdul taagana oo warbixinta la wadaagaya waxay ku bilaamaysaa sidii hore looga bartay maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay inay duulaan ku soo qaadayeen Jamhuuriyadda Soomaaliya waxaana su'aal ka taagnayn inay dambarsan doonaan durbaanada colaadeed ay joogtada u garaacayeen 8 bilood ee la soo dhaafay mana mahdin doonaan guluf kasta oo ay ku soo qaadaan ciidanka qaranka Soomaaliland iyo dhufays kasta oo ciidanku leeyahay jiida deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool iyadoo soohdimahaasi mucaayinka ah Soomaaliland oo iyo soohdimahaas mucaayinka ah Soomaaliland oo dhan waayo wasiirada warfaafinta Soomaaliland wasiirada warfaafinta Puntland iyo kuwa iyo ka arrimaha gudaha Puntland labadana lagu kala magacaabo Cabdi Xirsi Ali Qarjab iyo waliba Cabdilaahi Cali Timacade ayaa axadii warbaahinta la soo fadhiistay hanjabaad ay ka muuqato quus iyo waliba qaracan siyaasadeed iyagoo ku muusanaabaya in dagaal lama huraan uu yahay inay Soomaaliland ku noqoto deegaanka og iyo waliba inta la midka hadeega og inay Soomaaliland gaarsiiyaan waa siday la soo hor fadhiisteen Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay hadeerba u cadeysay inay mudnaanta koobaad siinayso nabadda iyo waliba iskaashiga wadamada jaarka ah iyo waliba deegaamada la jaarka Soomaaliland hase ahaatee aanay ka baaqsanaynin in ciideeda ay ka rarto cid kasta ku soo xadgudubta waxa nasiib wanaag ah in dalalka mandaqada geeska Afrika ay maqraati ka yihiin maamulka Cabdiweli Gaas oo dhabarka u jeediyay isku day kasta oo qaramada midoobay ay kaga dhaadhicinayso in xiisadda Soomaaliland iyo waliba Soomaaliya u dhaxaysa lagu furdaamiyo hanaan nabadeed oo wada hadal ku dhisan taasi oo Soomaaliland dhinaceeda si buuxda u aqbashay ergadaas waayahay aan ku socdo dagaalka Puntland iyo Soomaaliland waxa hore loogu soo joogay in muddadii u dhaxaysay bilihii December iyo waliba January la soo dhaafay maleeshiyaadka Garowe ay Soomaaliland ku soo xadgudbeen in ka badan 20 jeer waxa hase yeeshee Soomaaliland xiirinaysay nabad jacaylka iyo waliba ku soo caanab maashay balse waxay wararkii ugu dambeeyay ay folkafol ku soo qaadeen ciidamada wararada ugu dambeeyay folkafol ku soo qaadeen ciidamada Soomaaliland 24kii bishii May 2018 oo ay kala kulmeen faragubasho ay ku naanayseen iyada oo si weyn adhaxda looga jabiyay taliskaasi waxaana fadalkii ciidankooda afka saaray duleedka Garowe waaye 3 ilaa 4 jeer oo Soomaaliland iyo waliba Puntland ishaleeleen
taariikhda kuma jirto meel qura oo Puntland ay ku guuleysatay cabdiweligaas muxuu ku taransanayaa dagaalka tukaraq iyo Soomaaliland iyo Puntland u dhaxeeya waxa dadka siyaasadda la socda ee reer Puntland ay aaminsan yihiin in maamulka cabdiweligaas ee maangaabka uu doonayo inuu ku kororsado waqti doorashada imika doorashada ma hadda tanda lagu hoos dooranaya tando ayaa lagu hoos dooranaya waa sidii farmaajo loo doortay adeerkii farmaajo kale haddaba maanta aanu soo noqdo anigoo ku socdo doona qaybta dambe waxaan ku soo noqonayaa halka qodob ee ay muhiimka ah inuu soo galay maanta labada qof ee ku dhintay magaalada Laascaanood Soomaaliland waxay ka muujisay dareen ay kaga damqatay labadaasi qof laakiin labada qof qaabka ay u dhinteen ayay Puntland ma jara habaabisay kana dhigtay dad ay Soomaaliland ogaan u leysay dhinaca kale Soomaaliland iyo waliba dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalada Laascaanood waxay guud ahaanba isla qaateen in labada qof ay ku dhinteen rasaas ka dhacday ciidamadii wax weeyaan ilaalinayay barasaabka gobolka Laascaanood waaye barasaabka ilaaladiisa khaaska oo kadib labada qof markay ka shakiyeen rasaas ku riday Soomaaliland waxay muujisay inay la shiri doonto lana kulmi doonto dadkii ay labadaasi qof ka soo jeedeen reerkay ka soo jeedeen kana wada hadlayaan qaabka loo xalli karo geeridaasina wax weeye looga wada qayb qaadan lahaa haddaba maamulka cabdiweligaas ee majeerteeniya oo ku caado baxay inay had iyo jeeraale isku dhuftaan dadka Laascaanood gobolka Sool iyo wax weeye Soomaaliland sida ay uga shaqeyn lahaayeen oo ay ku fashilmeen oo aad ogtiin halka uu Cali Khaliif Galeed wadada uu maray iyo ragga siyaasiyiinta ugu waaweyn ee deegaamadaasi ka soo jeeda waaye soo qabo waan ku soo qabanaya walaal waan ku soo qabanaya fadlan hala share gareeyo intiina ku jirta warbixinta intaan soo galay inaan wiilka wax ka wareysto oo aad ila aragtaan faanka saaxiibadeenta halka ay bahasha marinayaan alla nima ku faan badana waxay ku leeyihiin ciidamadii Soomaaliland baa kala jabay dema meel bad ku maqasheen waa maya inaan maqal halkaasna waxa ka muuqata inay yihiin niman naf meel ay ka baxday weyda ee ku jirto oo tuura aad iyo aad bad mahadsantiin waa maalin ciid ah dooni maayo inaan ku dheeraado oo aan maaragtay runtii aan nimankaasi kaga sii hadlo laakiin saaxiibkaygaasi inaan barnaamijka qayb kaga dhigo qaybta kalena aan kaga xog warrano qaabka ay wax uga dhaceen magaalada Laascaanood guud ahaanba magaalada Laascaanood ayaa jawigeedu degan yahay shacabka reer Laascaanood waxay runtii la shaqeynayeen ciidamada Soomaaliland waxaan u mahadnaqaynaa runtii qaabka quruxda badan ee sharafta ku jirto ay ula shaqeynayeen ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland وايه aad bad mahadsantiin fiidiyoga hala share gareeyo Soomaaliland guul iyo gobonimo baan u rajeynana aad bad mahadsantiin ciid mubaarak dhamaantiinba